Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa darteeda u naxariisanayo addoomihiisa ayuu dhulka korkiisa u dhigay taariikho soo jireen ah oo aanan gadgadoomaynin islamarkaana aanan lahayn wax isbedbeddel ah. Taariikhdaasi waxay joogtaynaysaa nolosha dadka, taasi oo ay ku tiirsan tahay jiritaanka, dhaqdhaqaaqa iyo deegaanka bani'aadamka. Haddii xilli kasta uu lahaan lahaa taariikh u gaar ah ama meel kasta ay lahaan lahayd sunno ka duwan tan kale, nolosha uumigu way baabi'i lahayd, wayna amban lahayd dhammaan khibradihii la soo dhaafay. Laakiin gallad Ilaahay darteed, khibradii tagtay dhammaantooda ma dhumin. Wixii shalay kugu dhacay way soo noqonayaan, maantana waa ay kugu dhacayaan. Wixii maanta kugu dhacayna berrito ayay kugu soo noqonayaan. Sidaasi ayayna u soconaysaa ilaa maalinta dunidu dhammaato. Sidaasi darteed ayaa ah muhiimadda laga leeyahay barashada taariikhdu tahay. Dhacdooyinka noloshu waa ay soo noqnoqonayaan iyaga oo aad moodo in ay isku mid yihiin. Dunida wax ku cusub ma jiraan. Haddii aynu taariikhdu darisno, waxaynu ogaan doonaa dhacdadaani oo kale in ay waqti dhacday iyadoo wadata duruufta ay maanta wadato oo kale. Waxaynu awoodnaa inaynun kala soo baxno wixii tii hore lagala baxay. Haddii guul laga dhaxlay, wadadeedii ayaynu maraynaa si aynu ugu guulaysano sidii ay ugu guulaysteen kuwii guulaystay. Haddii ay dhacdadu ahayd mid lagu jabay oo fool xun, qaladaad ay sameeyeen kuwii la noolay waqtigaasi darteed, waynu ka fogaanaynaa si aynan ugu dhaxlin faa'iidadaasi xun oo kale. Barashada taariikhda oo sidaani loo bartaa waxay ka dhigaysaa taariikhda mid nool oo soo jeeda. Barashada taariikhdu noocaani loo bartaa waa mid leh ujeedo cad. Ujeedadaasina waa in laga baaro cibro, waana midka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku sheegay kitaabkiisa. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Waxaa ugu sugan cibro qaadasho taariikhda kuwa caqliga u saaxiibka ah. Sababtaasi darteed ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 3 meelood meel kaga dhigay warar iyo qisas si ay u aqriyaan muslimiinta taariikhaha dunida soo maray iyo ummadihii hore, iyo sidoo kale inay u ogaadeen dhab ahaan inay yihiin sunankani kuwa sugan, isla markaana la ogaado saadaalinta shay inta aanu dhicin ka hor iyo ka faa'iidaysigiisa. Waxaana keliya oo lagaga faa'iidaysan karaa iyada oo qiso kasta si qoto dheer looga fikiro iyo in la baaro dhan kasta si isla eg. Sidaasi darteed ayuu Ilaahay qur'aankiisa ku leeyahay: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ugu waran wararkii dadkii hore si ay u fikiraan. Waxaa hadda in hor taala taariikhda muslimiinta kuwa ugu muhiimsan ama taariikhda dunida oo dhan. Guud ahaan waa dhacdo ku saabsan soo bixitaanka awood cusub oo cabsi leh wejiga dunida korkiisa oo dhan. Qarnigii 7 ee taariikhda hijriga waxay geysatay soo bixitaankeedu mid adduunyadu oo dhani taariikhdeedu bedeshay. Guud ahaan, gaar ahaan caalamka Islaamka, quwaddaasi waa dowladdii Tataarka. Ka waranka Tataarku waa qiso aad u yaab badan. Waa cajiib dhan kasta marka laga eego. Haddii aanan lahayn ilaalwareedyo saxan dhammaantooda iyo weliba sawirkeeda oo ahaa mid ballaaran oo cid waliba ka warqabtay, waxaynu dhihi lahayn waa khayaali ama waaba sheeko xiriireed. Waa qiso yaab leh isbedbedelkeedu. Waa awood isu rogtay dacfi ama awood yari isu rogtay awood iyadoo aan muddo badan qaadanin. Maba ahan sanado yar maahane inta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dowlad ku cisaynayo, mid kalena ku dulaynayo. Sanado yar kadib ayaa mid ku dulaynaya, haddana mid kalena ku cisaynaya. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير waxaad dhahdaa nebi maxamedow naxariisii nabadgelyo korkaaga allaha yeele allaha mulkiga iska lahow cidda aad doonto ayaad siisaa mulkiga cidda aad doontana waad ka siibtaa mulkiga waad sharaftaa cidda aad adigu doonto cidda aad doontana waad dulaysaa gacantaada ayaa khayr oo dhammi ahaaday wax kastana ilaahow waad awoodaa mar kale waa qiso cajiib ah dhab ahaan dhacdooyinka ku jira darteed weliba aad u daran islamarkaana ku xeel dheer lambarada dhacdo kasta ku xeel dheer tirada dhimashada tirada ciidamada tirada magaalooyinka burburay badka dhulalka la kala qabsaday sida kale waxa ay qisadu cajiib u tahay waa u ekaanshaheeda waaqiciga maanta aynu taagannahay wuxuu doonay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo caddeeyo suugaanta sunankiisa iyo soo noqnoqodka taariikhda markaasuu ka dhigay dhacdooyinka maanta ay ummadeennu marayso mid la mid ah tii ay maraysay ummaddii muslimka ahayd ee nooleed qarnigii 7 ee taariikhda hijriga hadduu rabbi raalli ka noqdo waxa aynu dhacdooyinkani u dulmari doonaa si dhaqso ah innagoo ka baarayno meelaha cibro qaadashadu leh iyo u ekaanshaheeda casrigani aynu ku noolnahay maantadani